waxaan cambaaraynayaa in diyaaraddii gargaarka siday ee kusimaha madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku uu hogaaminayay in laga soo celiyo gargaarkii ee dadka tabaalaysan ee loogu talagalay inay maanta laga soo celiyo. waa nasiib darro, waana dembi aad u weyn oo xuquuqda aadanaha aad ugu weyn, mana laga hari doono. cid kasta oo ka shaqaysay arrintaas waxay noqon doontaa mid laga xisaabtamo oo aanu u sheegayno xuquuqul insaanka iyo cid walba oo arrintaas runtii u aragta inay wax xun tahay. waxaan runtii halkan rabaa inaan xukuumadda Puntland oo indhoweytoba aad moodo in ay ka shaqaynayso dhibaatooyin aad u fara badan oo aan aad iyo aad runtii ugu fiicnayn dowladnimada iyo nidaamkii dadka walaalaha ay ku heshiiyeen reer Puntland. waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka Puntland oo gebi ahaanba diiday golihii garsoorka oo uu muddada ku soo celcelinayay oo ay u arkeen inaysan ahayn dad munaasib u ah deegaanka iyo dowladnimada, oo runtii waax dhan oo garsoorka in gebi ahaanba uu madaxweynuhu ka dhigto curaar uu isagu ku shaqaysto. waa nasiib darro saddexdii hay-adood, golihii garsoorka, golihii baarlamaanka, golihii xukuumadda, in gebi ahaanba aysan jirin golihii garsoorka maanta Puntland aysan jirin, oo uu sababay in uu dad yacni isagu dana uu ka leeyahay inuu ummaddii ku ijbaaro ama dhibaato ka abuuro. baarlamaanka waa u mahad celinayaa. waxaana leeyahay gole garsoora oo cadaalad iyo dadku ay aad iyo aad ugu kalsoonaan karaan, oo dastuuriya, oo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo meelaha ku shaqada leh inay ka yimaadaan mustaqbalka in lagu salayo, oo gebi ahaanba aysan hoos tegin garsoor fulinta hoos tegayaa aysan ummadda anfacayn. waa nasiib darro 22 sano iyadoo laga joogo in garsoorkii maanta gebi ahaanba uu maqan yahay oo qayb dhan oo waaxa la waayo. waa nasiib darro aad u weyn. waxaan runtii aad iyo aad u soo dhoweynayaa ummadda reer Puntland guud ahaan iyo gaar ahaanba in arrimaha Puntland laga tashado, in arrimahaas ay noqdaan kuwa reer Puntland dib isugu yimaadaan oo aayahooda ay ka tashadaan, shirweyne guudna ay isugu yimaadaan. run ahaantiina gobolladii iyo degmooyinkii isu tegey waxaa moodaa gebi ahaanba inay furfurmeen. maamul xumadii iyo dhibaatadii iyo shaqaaqooyinkii iyo majarahabowga ku dhacay maamulkii ay dadku wadaageen. waxaan soo jeedinayaa in gogoshaa la dhigo oo aan lagu geli karin doorasho aan lagu geli karin maadaama xilligii dhow yahay, mid dimuqraadiyad aan lagu geli karin, mid ma garanaysaa qabaa'ilku siduu ku heshiiyey aan ahayn aan lagu geli karin. arrimahaasoo dhan ay ka horeyso in laga wada hadlo wixii shalay lagu heshiiyey runtii muhiimadda weyn u lahaa, sidii loo toosin lahaa, dariiqii awal loogu talagalayna loogu celin lahaa. arrintaa intaas ayaan runtii rabaa inaan ku dhaafo. qodobka labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidamadii lagu tababarayey Eritrea oo runtii aan aad uga mahad celinayo dowladda Eritrea oo ciidankii Soomaaliya u dhammaystirday tababarkoodii iyo agabkii u baahnaayeen xilligii loo baahnaana insha Allahu tacaala ay maanta tahay ciidanka Soomaaliya inay Soomaaliya wax weyn ka qabtaan. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo nasiib u helay maanta inuu ciidamadaas u tago mustaqbalkana ay la falgalaan xukuumaddiisa ay la falgalaan.
madaxweyne aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tegitaanka uu tegey ka qaybgalka ciidanka uu u tegey muuqaalka iyo farxadda weyn uu nala wadaagay waxaana leeyahay haddaanu odayaasha dhaqanka nahay haddaanu waxgaradka iyo dadka runtii waddanka jecel dowladnimadiisa iyo nidaamkiisa jecel waxaanu aada u soo dhoweynaynaa ciidamada qalabka sida ciidamada milatariga ciidamada ma garanaysaa badda ciidamada cirka ciidamada qaybaha kala gedisan inay hore u sii socdaan dhismahooda iyo waxqabadkooda iyo tayadooduba inay sii socdaan waxaan aada iyo aada usoo bogaadinayaa dowladda cusub ee qaybaheeda kala duwan inay ummadda u khidmeeyaan inay ummadda gaarsiiyaan adeegyadoodii inay gaarsiiyaan wax allaale wixii horey u socday iyo waxay la yimaadaanba soomaaliya waxay u baahan tahay inay dib u istaagto in la ilaaliyo dowladnimada in la ilaaliyo nidaamka aan u baahannahay ee ah inaynu horey u sii soconno 31 sano ama 32 sano inaynu runtii meel fiican tagno ayaa la rabaa waxaa la rabaa in dhinacyada la qabto waxaa la doonayaa inaynu meel fiican gaarsiino waxaan doonaynaa inaynu dowladnimadeenna dhammaanba aan u istaagno sidii aynu uga wada shaqayn lahayn una dhowri lahayn dadkeenna badqabkiisa deegaanka badqabkiisa iyo diinteenna sharafta badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu deeqay sidaynu uga faa'iidaysan lahayn وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.